بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك قال يا ميل كستاد الدنيا دعلة دكة شوكتان وولاش فرحية علي محمد وإذن له فرحات إيجوارا channel كان قد داوانا سنة ومعمار channel سود وهذا دمانتين. ولا لهيك قال يا ما أنتم حايدين وذا وحيابا وفي عن تنتا هقول بدن كود وحي كسو عبانيان تمهي يوغايا تمهي يوتشابايا cilado badan baa timaha waxa weeyaan waayahan dumarka ka haysta maanta waxa idin wadaa alaab hadii timaha aad marisaan ma sha Allah aad iyo aad uga heli doontiin chachapkii timihii daadanayay timihii go'ay waxa soo dhan insha Allah taala aad kaga maarmi doontiin. Okay, maanta waxaan rabnaa inaan isku darno alaabtan waa vitamin E baa la dhahaa vitamin E walaalaha qaaliga maanta waxaan isku daraynaa vitamin E-gan oo 5 xabo ah sidoo kale xabad ukun ah sidoo kale waxaan isticmaali doonaa aloe vera waxa weeyaan waa dacar geedkii dacarta oo la fariisiyay weeyaan waa dacar oo gel ah aloe vera gel waxaad ogtiin walaalaha qaaliga geedka dacartu inuu yahay geedaha ugu faa'iidada badan dhirta inuu ka mid yahay inta badan loo isticmaalo jirka dhamaantiis geedka dacartu wuxuu u yahay daawo waxa loo isticmaalaa wajiga waxa loo isticmaalaa jirka kale waxa loo isticmaalaa uu aad iyo aad ugu fiican yahay timaha vitamins badan baa ku jira faa'iidooyin badan buu timaha u leeyahay timaha go'ayana 100% waxbuu ka taraa ما شاء الله تبارك الله سيدا درادد قفكي هدي uu haysto geedki laftirkiisa dacarti laftirkeedii hadii aad heli kartid dacarta soo qaado dhexda ka kala jeex markaad kala jeexdid dheecaanka dhexda kaga jira kama juuji oo kala soo bax hadii aadan geedki laftirkiisa heli karin ama inaad jeexjeexdid iyo waxaas aadan waqti badan u haynin waxaad uga maarmaysaa iyadoo jeel ah dacartii loo shadeeyay oo jeel ah inaad soo gadatid tintana waxay ka dhigaysaa ma sha Allah jileec markaad jeeshaan isticmaashid sidoo kale tinti daadanaysa iyo tinti jajabaysayna insha Allah way ka istaagi doontaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiraahdo wax walba waa idanka Ilaahay. Sidoo kale waxaan isticmaalaynaa olive oil baan isticmaalaynaa waxaan laakiin isticmaali karaa any saliid oo aad timaha u isticmaashid adigu ha ahaato saliid qumbo ama coconut olive oil iyo waxyaabihi kale adigu aad isticmaashid saliidii marka tinta u isticmaashid baad isticmaalaysaa laakiin saliidaha tinta loo isticmaalo waxa ila fiican olive oil iyo coconut ama saliid qumbo labadaas aad timaha ugu fiican marka anagu maanta waxaan isticmaalaynaa olive oil. walaalaha qaaliga xabad ukunna waa isticmaalna ukuntu tinta aad ayay ugu fiican tahay waxa fiican qofku xitaa waxyaabo kale haduusa ku dareen ukunta xitaa tinti asbuuci ugu yaraan hal mar inuu ukunta tinta ku dhaqdo aad ayay ugu fiican tahay vitaminkaana tinta aad ayuu ugu fiican yahay tinta chachapkii iyo waxa soo dhan buu kala dagaalamayaa waa isku wada daraynaa mid waxa weeyaan goonidiisa mid kasta goonidiisa ayuu wuxuu u leeyahay faa'iidooyinkiisa marka la isku sii wada darana de waa ma sha Allah vitaminkan kaligi intaad waxa weeyaan dheecaanka ku jira ka shubatid kaligi tinta xitaa waad marin karaysaa. Okay, soo dhawaad walaalaha qaaliga waa idinka mahad celinayaa sida aad noogu xiran tihiin dhamaantiin. Please haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe de gambaleelka furo si aad ula socotid fiidiyowyada dambe insha Allah taala like iyo commentigana soo badiya. Bismillah hadda waxaan ka bilaabaynaa ukunta. walaalaha qaaliga ukuntii ayaan ku shubanay sidoo kale waxaan ku shubanaynaa aloe-vera ama dacartan walaalaha qaaliga waxaad ka helaysiin ayadoo jeeshaasa waxaad ka helaysiin cosmeticska meelaha shoobinada lagu iibiyo ayaad ka helaysiin sidaas ayay u egtahay.
okay, qaadadaas ay nagu filan. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa 5 xabo oo ah vitamin E. 5 xabo oo vitamin E ah. 5 xabo ayaan ku darsanaynaa. maqaskaasaan isticmaalayaa, laakiin waxaad kaloo isticmaali kartaa cidida xitaa waa lagu jari karaa. biinka oo shalmada lagu xirto waad ku mudi kartaa. saliidaas baa ku jirta, muhiimadu waa saliidaas. qubkan waa iska tuuraynaa. okay, kii labaad. kii oo saddexaad. kii afraad. kii shanaad u dambeeyay. okay, walaalahay qaaliga waxaa u dambeeya waan ku darsanaynaa olive oil-sha. 1 qaado oo olive oil ayaan ku daraynaa. waa isku qasaynaa, waa isdhex gelinaynaa. cream camal bay noqonaysaa. kabacdi markaas ayaa tinta la marinaya. minaygaan jarjarayay baan ku dhex dhacay. si fiican baa isku dhex gelinaynaa. okay, walaalahayga qaaliga waa ujeediin meesha maxaa ka soo baxay cream caadi ay noqotay. markay saas ay isku dhex gasho ee caanaha cad noqoto, creamka isjiidaya ay noqoto, saa isku jiidaya, waxaad samaynaysaa tinta waxaad ka dhigaysaa 4 golool ama 4 qaybood baad u kala xiraysaa. tinta waxaad kaga masaajaynaysaa salka tinta kaga masaajaynaysaa. haddaa aragtid tin siibanaysaa, ciladu baarka iyo waxaas kama jirto. ciladu waxay tinta kaga timaadaa waa salka. salka markuu dhibaato ka jirto, markaa unbay tintu siibanaysaa, markaa unbay tintu daadanaysaa. markas waxa aad timaha marinaysid, timaha korkooda iyo timaha baarkooda iyo xooga ha saarin.
tinta salka waxaa marinaysid salka waa inaad kaga duugtid kaga masaajaysid sidaa daraadeed intaad 4 qaybood timaha ka dhigtid oo kala yaryariso kala xirxidid salka kaga masaajee ka bacdina markaa salka si fiican ugu hubisid wixii kuu soo hara markaa timaha dee wada gaarsiiyo wada mar insha Allah taala walaalahayga qaaliga gabadhu markay nuujinayso kale tinteedu si dabiici ah bay u daadataa gabadhu markay nuujinayso ma garanayo wallahi research aan kuma sameeynin oo yani waxaan ka wada cilada ka dambaysa ma nuujinta ma garanayo laakiin waxyaabahan arkay waxa kamid ah tintaadii oo aan daadanaynin oo waxa weeyaan wax dhibaato lahayn markaad nuujisid aad ilma dhashay aan nuujinaysid xilliga nuugmada tintu way daadanaysaa wax kasta oo awal ku saacidi jiray waxa dareemaysaa tinta ku qurux badnaato tinta ku dheeraato laakiin daadasho ba dareemaysaa soo hadii aad tahay hooyo nuujinaysa tinti way ku qurux badninaysaa growth-koodii iyo bixitaankoodii way ka qayb qaadanaysaa laakiin waxa laga yaabaa 100% inaysan tintii go-idi ka caawin laakiin waqtiyada kale aad marxaladaha kale ku sugan tahay haddii aad joogtaysid waad ka faa'iido gaaraysaa insha Allah taala walaalahayga qaaliga asbuuci 2 jeer ayaad marsanaysaa asbuuci 2 jeer ayaad marsanaysaa waqti caadi baana u deynaysaa ilaa 1 saac ilaa 2 saac markay kugu marsanaato ayaad iska dhaqaysaa adoo isticmaalaya shaambadii aad isticmaali jiray tintana waxaa fiican marka aad dhaqaysid shaambada ka bacdi markaad shaambada ku dhaqdid ka bacdi inaad doobi shaambe isticmaashid ama nafaqo isticmaashid tinta mar walba shaambe kaliya hadii lagu dhaqo waxyaabaha tinta inaga haleeyay bay kamid yihiin soo markaad aad tinta shaambada ku dhaqdi waliga waxa fiican inaad isticmaashid doobi shaambo uga dambaysiisid ama nafaqada tinta uga dambaysiisid intaas waa tala guud alaabtan asbuuci 2 mar ayaad marsanaysaa hadii Ilaahay yiraahdo 3 week ugu badnaan 3 weekna jawaab cad ayaad ka helaysaa hadii Ilaahay awooda u ogolaado walaalahayga qaaliga waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin ay idin caawin doonto tinta jajabaysa tinta daadanaysa waxyaabaha soo dhan ay ka caawin doonto sidoo kale maadaama ay ku jirto gel aloe vera gel ay ku jirto ama dacar ay ku jirtana tintu insha Allah waxay noqonaysaa tin smooth ah oo jilicsan oo kala daadanaysa bay ku noqonaysaa hadii Ilaahay yiraahdo kama hadlayo tusaalahan jilicsadii booskeedii ay kala galaysaa kama hadlayo laakiin tin kala saaran oo jilicsan oo qurux badan oo hilaacaysa oo bidhaamaysa ayay ku noqonaysaa sidoo kale way ka qayb qaadanaysaa tinta korideedii iyo bixitaankeedii jajabkii iyo waxyaabaha soo dhan insha Allah taala way ka hortag ayay u tahay walaalahayga qaaliga intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa maanta videoga idinku tala galay fadlan hadii ay jiraan waxyaabo tinta ku saabsan oo aad ka cabanaysid videogan marka daawatid hoostiisa message iigu dhaaf insha Allah taala